السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كديريجين عافيماد. فيديوغن وحان كغا hadlaya faa'iidooyinka uu leeyahay vitamin K-gu iyo marka uu vitamin K-gu ku yaraado jirkaaga maxaynu ugu baahanahay vitamin K-ga ama muxuu muhiim inuu yahay jirkeena waxyaabaha uu inaga caawiyo jirkeena ka caawiyo vitamin K-gu iyo waxyaabaha sababa inuu kugu yaraado vitamin K-gu iyo ugu dambeyn marka caruurta uu ku yaraado vitamin K-gu iyo calaamadaha aad isku arkaysid haddii uu kugu yaraado vitaminka K-gu. Vitaminkani waa vitamin aad iyo aad muhiim u ah. Vitamin K-ga wuxuu jirkeenu ugu baahan yahay si uu u sameysmo ama ka caawiyo inuu dhiiggeenu xinjiro u sameeyo si uu u xinjiroobo dhiiggeenu iyo inuu joojiyo dhiigbaxa. Haddii wax ku jaraan dhiigga waxa ka caawinaya markiiba xinjiro u sameysmo oo dhiig istaago waxa qayb libaax leh ka qaata vitamin K-ga. waxa kale oo door muhiim ah ka ciyaara vitamin K-gu caafimaad qabka wadnaha iyo lafaha iyo ilkaha ayuu aad muhiim u yahay. waxa kale oo uu muhiim u yahay inuu kor u qaado ururinta calciumka ee lafaha iyo ilkahaba. vitamin K kugu filan ama haddii aad qaadato supplement vitamin K ah waxay kordhisaa cufka lafahaaga ay kordhisaa. haddii uu kugu yaraado vitamin K-guna waxa hoos u dhacaya cufkii lafahaaga taas oo sababi karta inuu kugu yimaado lafihii ku jabaan siiba misigta oo kale ay ku jabto. aad ayay risk u tahay inay taas kugu dhacdo. haddii aad tahay qof qaata dawooyinka dhiigga furfura uma baahnid inaad vitamin K qaadatid maxaa yeelay haddii laga ilaalinayo dhiigaaga inuu xinjiro sameysmo vitamin K-gana wuxuu kaa sii caawinayaa inuu xinjiro kala sii sameysmo. marka dadka qaata dawooyinka dhiigga furfura ee xinjirta ka ilaaliya iyagu uma baahna inay qaataan vitamin K-ga. vitamin D-ga ayaa isuna door aad muhiim u ah ka qaata caafimaad qabka lafaha iyo inuu dhiirigeliyo nuugista calciumta ee lafaha iyo inuu ilaaliyo heerka calciumta ee jirkaaga ama lafahaaga. vitamin D ama vitaminka cadceedda oo kugu yaraadaa waxay halis u tahay inuu hoos u dhaco lafahaagii hoos u dhacaan qofkii lafahaaga ama lafabeel. hore ayaan uga hadalay vitaminka cadceedda fiidiyogana waa daawan doontaa linkina waa idiin soo gelin doonaa. fiidiyogan waxaan kaga hadlayaa vitamin K-ga iyo muhiimadiisa. marka laga hadlayo dheefshiid kiimikaadka calciumka vitamin D-ga iyo vitamin K-ga dhammaantood ayaa ka wada shaqeeya door muhiim ahna ka qaata caafimaad qabka lafahaaga. haddii mid ka mid uu kugu yaraado ama vitamin D-ga uu hoos u dhaco ama vitamin K-gu ama calciumta hoos u dhacdo waxay saameynaysaa lafahaagii ay saameynaysaa. doorka uu vitamin K-gu ka ciyaaro jirkeena waxaa ka mid ah si aan hore uga soo hadalay vitamin D-gu wuxuu hubiyaa heerka dhiigga ee calciumta inay sareyso si loo daboolo baahiyihii jirka ee calciumta ama vitamin D-ga. vitamin K-gu wuxuu nidaamiyaa calciumta jirkaaga ugu yaraan 2 siyaabood. vitamin K-gu wuxuu activate gareeyaa borotiinada uuna dhaqaajiyaa inuu isku daro calciumkii lafaha. waxa kale oo ilaaliyaa inay calciumtu meel ku wada ururto qayb jirkaaga ka mid ah ay calciumtii ku ururto oo loo yaqaano calcification. tusaale ahaan oo kale inay calciumtii ku ururto xiidada oo kale ama keliyaha ama indhaha ama caloosha qayb ka mid ah ay calciumtii tissuegaagii ama unugyada jirka ay qayb ka mid ah ku ururto calciumtii. waxyaabahaas oo dhan waxay naga caawiyaa vitamin K-ga. haddii uu kugu yaraadana waxaa sabaysmaysaa waxa loo yaqaano calcification oo calciumtii ayaa meel ku wada ururaysa inay ku ururto sanbabkii oo kale inay ku ururto keliyihii oo kale. haddii uu vitamin K-gu kugu yaraado waxa aad riski ugu jirtaa in calcification uu ku sameysmo jirkaagii. tusaale ahaan oo kale xiidada jirka oo kale xiidada dhiigga inuu ku sameysmo calcification ama calciumtii meel iskugu ururiyo. ma rabno inuu calcification ama calcium ay isku soo ururtay ay ku sameysmato xiidada jirkeena maxaa yeelay shaqadoodii ayaa hoos u dhacaysa taas oo sababaysa luminta xiidadii inay dabacsanaadaan iyo inay adkaysi
ay qalafsanaadaan oo adeeg ay noqdaan, taas oo sababi kartana in ay xiidadu ay dhiiggii uu qarxo ama uu dhiiggii sii daayo. marka faytamiin kugu filan waxay muhiim u tahay tusaale ahaan oo kale xiidada jidhkaagu inay dabacsanaadaan iyo inay adkaysi lahaadaan, iska caabiga dhiigga ay adkaysi u lahaadaan. waxyaabahaas oo dhani waxay aad muhiim ugu tahay inaad hesho faytamiin K kugu filan. had iyo jeer way yar tahay in dadka waaweyn uu ku dhaco faytamiin K uu kugu yaraado, aad bay u yar tahay, laakiin marmarka qaarkood way dhacdaa. laakiin waxay aad iyo aad ugu badan tahay inuu faytamiinku K hoos u dhaco caruurta markay dhashaan oo kale. caruurtu waxa ay ku dhashaan faytamiin K ku yar, maxaa yeelay jidhka waxaa ku jira qadar aad iyo aad u yar ayaa ku kaydsan. faytamiinka yar ee caruurta ku kaydsan jidhkooda waxay u horseedi kartaa inuu dhiigbax ku yimaado, taas oo sababi karta halis ku sababi karta caafimaadkooda iyo noloshoodaba. normal ahaan faytamiin K waxaynu ka helnaa cuntooyinka aynu cunno, qaar ka midana waxaynu ka helnaa oo inoo sameeya bakteeriyada wanaagsan ee ku nool mindhicirka jirkeena, taas ayaana inaga caawisa inay inoo sameyso qayb ka mida faytamiin K. dadka qaarkood waxa ku dhaca dheefshiidka caloosha ayaa shaqadoodii hoos u dhacdaa oo soo nuugitaankii faytamiin K hoos u dhacaa, taas oo sababta inuu faytamiinkaagu hoos u dhaco. ama inaad qaadato cunto faadka ku yartahoo kale, ama haddii aad qaadato dawooyin sida kuwa infectionka loo isticmaalo, qaar ka mid ah ayaa iyaguna waxay saameeyaan inay hoos u dhigaan faytamiin K. ama haddii uu qofku leeyahay beer xanuun oo kale, oo ama beerku damage ku yimaado, taas waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaataan in uu hoos u dhaco faytamiin K. haddaba caruurtu maxay ugu yaryahay faytamiin K? waxay marka ay dhashaan, sidaan hore uga hadlay, qadar aad u yar ayaa ku kaydsan jirkooda. naaska oo kalena kama helaan qadar ku filan oo faytamiin K. bakteeriyada wanaagsan ee inoo sameysa dadka waaweyn faytamiinka ka caawisa ee inoo sameysana caruurta ma laha. waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaataan in caruurtu ay aad iyo aad ugu yaraado faytamiin K. waxaana looga hortagaa caruurta faytamiin K markay dhashaan in la siiyo irbad faytamiin K lagu mudo si uu faytamiinkooda kor u soo kaco. haddaba calaamado noocee aad isku arkaysaa haddii uu faytamiin K kugu yaryahay markaad qof weyn tahay? waxaad isku arkaysaa marmarka qaarkood ilkahaaga ayaa dhiigaya, ama sanka ayaa dhiig kaa imanaya hunug oo kale, ama si yar oo fudud baad kugu samaysmaysaa milal u sameynaysa jirkaagu u samaysmaya maqaarkaagu. marmarka qaarkood dhiig baa iska imanaya, ama caloosha tusaale ahaan oo kale ka imanaya, ama iska kaa dhiigayaba, ama qofka saxaradiisa kala soo raacaya oo calooshii ka imanaya, ama kaadida soo raacaya. waxyaabahaas oo dhani waxay ka mid yihiin waxyaabaha la isku arko haddii qofkaasi uu ku yaryahay faytamiin K. sidaan ugu hadlay, sida uu sameysmo calcificationku ama calciumta oo meel iskugu ururta jirkaaga, haddii uu faytamiin E kugu yaryahay, wareegii dhiigga ee xiidada qayb ka midana hadduu hoos u dhaco, waxyaabahaasi waxa ay ka sahli kartaa in calciumtii lagu soo ururiyo qayb ka mida jirkaagii ama xiidadii lagu soo ururiyo, taas oo dhaawacaysa xiidadaadii, kadibna uu samaysmayso calcification ama calcium isku soo ururtay oo isku dhegtay oo marmarka qaarkood xidhaysa qayb ka mida xiidadaada. haddaba xaggee ayaan ka helaa cuntooyin noocee ayaan ka helaa faytamiin K? waxa ugu badan ayaan ka helaa waxa weeye cuntada cagaaran, fruitiska oo kale, waxaa kale oo laga helaa ukunta ama beerka oo kale, cuntooyinka dufan kale, cheeska oo kale. waxyaabahaasi waa kuwa ugu muhiimsan ee laga helo faytamiin K. marka fiidiyoga intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. waa inoo iyo kulanti dambe. daawada haddii aad ku cusubtahay barnaamijka, subscribe saar, siina share garee. aad iyo aadna waa mahadsantihiin.